Kubadda cagta caalamka waxa ay tahay mid indhaha lagu hayo ciyaartoyda qaaraddaas Yurub u dhalatay ama Latin America. Laga yaabee in ciyaartoyda qaaradda Afrika iyana ay saameyn ku leeyihiin meherada kubadda cagta. Sadio Mane dadku inta badan way arkaan waxqabadkiisa, waxaana uu ka mid yahay baalasha ay ku duulasho kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waxaan eegi doonaa sheeko yar oo ku saabsan Cristiano Ronaldo oo ka mid ah ciyaartoyda dunida ugu wanaagsan soo maray. Intii kulan ay ku qaadatay inuu dhaliyo goolal gaaraya 84 gool. Mane labadii kulan ee ugu dambeysay ama kulankii ugu dambeysay kooxdiisu Chelsea ay la dheshay 2 gool ayuu dhaliyay. Labadaas goolna waxay u noqotay inuu dhaliyo 86 gool. Isagoona kooxda kubadda cagta ee Liverpool u saftay ama guud ahaan Premier League ka saftay 196 kulan. Ronaldo waxay ku qaadatay 196 kulan in uu ku dhaliyo 84 gool, halka Mane 196 kulan ay ku qaadatay 86 gool inuu dhaliyo. Super Sadio Mane waa ciyaaryahan u dhashay waddanka Senegal. Waxa uu caawiyaa qoyskiisa iyo dalkiisa iyo degmadii ama magaaladii ama tuuladii uu ku dhashay. Masjid ayuu ka sameeyay. Waxa uu sidoo kale u dhisay goobo caafimaad oo isbitaallo. Sidoo kale Mane ayaa u furay garoon kubadda cagta oo lagu soo saaro daayirta halka uu ka soo jeedo. Haddaba sheekadan ayaa indhaha caalamka soo jiidatay. Cristiano dabcan waqtigii uu imaanayay kooxda Manchester United waxay ahayd sanadii 2003 ilaa 2009 ayuuna ku sugnaa. taas waxay ka dhigan tahay in 6 sano Premier League uu ka ciyaaray. Sadio Mane intii aan Liverpool imaaninna waxa uu ciyaaray kooxda Southampton tirahan Ronaldo la eg. Waxaan la sheegay in ciyaaryahanka hadda uu ka gool badan yahay Cristiano Ronaldo. Sadio Mane dhawaan waxa uu ammaan ka helay Cristiano Ronaldo ninka ay tatamaanay Messi. Waxaana uu sheegay in Messi markasta uu soo gelin lahaa 40 nin ee adduunka ku wanaagsan. Super Sadio Mane oo hadda kooxda kubadda cagta Liverpool toddobaadkan gool u soo xareeyay.